maxay Soomaaliya muhiim ugu noqotay gumeystaha reer Yurub sanadkii 1869 markii la furay maranbiyoodka Suez Canal waxaa sii koray istiraatiijiyadda Soomaaliya ee ku aaday dhinaca isku xirka caalamka reer galbeedka ayaa ku baraarugay in Soomaaliya ay xudun u tahay socdaalka Afrika iyo Asia sanadkii 1884 Mareykanka iyo 13 dal oo reer Yurub ah ayaa shir ku yeeshay magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka shirkaasi oo socday ilaa sanadkii xigay ee 1885 waxay ujeedkiisu ahayd in dalalka ay kala qaybsadaan qaaradda Afrika Soomaaliya kaligeed waxaa loo kala qaybiyay 3 gobol oo ay kala qaateen 3 wadan oo Yurub ah goboladaasi waxaa loo kala bixiyay mid waxaa gumeystay wadanka Ingiriiska oo waxaa loo bixiyay British Somaliland midna waxaa loo bixiyay waxaa gumeystay Talyaaniga waxaa loo bixiyay Italian Somaliland midna waxaa gumeystay Faransiiska waxaa loo bixiyay French Somaliland xilligii uu halganka xornimo-doonka socday ujeedadu waxay ahayd in dib loo helo shanta Soomaaliyeed oo loo yaqaanay goboladii Soomaali galbeed NFD waqooyiga koonfurta iyo Djibouti markii uu gumeystaha ka baxay wadanka gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya way midoobeen waxaana la magac bixin Jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin Soomaali galbeed waxaa lagu daray Itoobiya halka NFD ay qaadatay Kenya Djibouti oo weli markaas ku sii nagaatay gacanta Faransiiska waxay dal gooni ah noqotay sanadkii 1977 laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay wadamada reer Yurub ama si kala hadaan u dhigno wadamada reer galbeedka Soomaaliya waxay kala yihiin dana fara badan oo ugu jirto xagga dhaqaalaha marka la fiiriyo Soomaaliya dhaqaalaheedu weli waa ciiriin oo weli lama aysan bixin ma aysan isticmaalin balse waxaan soo wadnaa barnaamijyo badan oo la xiriira sababta inta badan keentay Soomaaliya inay waqti dheer fan ay ugu bixiyaan wadamada reer galbeedka siibaha ugu badnaada Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska lacagaha ugu badan ee dawladda Soomaaliya la siiyo waxaa bixiya Mareykanka iyo Ingiriiska waxaana isweydiin mudan oo aan rabno inaan kaga sheekeyno barnaamijka siraha waa maxay sirta ka dambeysa inay lacagahaasi bixiyaan